muddo 3 maalmood waxaa xiran isbitaalkii degmada Garjir baa xiran sababta ka dambaysa isbitaalka xirnaashiisa ayaa rabaa dhowr meel inaan iska taago cidna uu axan maayo hooyooyinka halka iyagoo umulaya laga saaray oo la ii sheegay qaar in balli daree laga keenay oo la ii sheegay qaar in qarax laga keenay oo ilaa dadka halkaa degan oo isbitaalkaas u ahaa isbitaalka ugu dhow oo haddii cunug bukoodo la geeyo oo haddii hooyo bukooto la geeyo qof bilaadan inaan ugu eexdo cidda uu raba ha ahaadee horta suurtageli mayso waxaan rabaa isbitaalka Garjir oo ilaa shalay aanu carrajiiflaynayo bal inay wax iska bedelaan waxyaalaha ka dambeeya isbitaalku inuu xirmo horta meesha laba awoodood baa isku haysata maamulka degmada oo iyagu awood adeegsanaya iyo hay'adda warda la yiraahdo isbitaalka gacanta ku haysay labada awoodood baa is haysta dhibaataduna waxay ka dhalatay agaasimo wasaaradda caafimaadka Hiirshabeelle ay Garjir u soo magacawday oo markii Garjir uu yimid wasaaradda caafimaadka hay'addii warda markay la xiriirtay ay ku dhaheen ninka magacaabistiisa waxbaa ka qaldane bal naga xalliya ninku waraaqa wataa waa nin wasaaraddu soo magacawday haddana wasaaraddii markii lala xiriiray waxay leedahay ninkan si qaldan baa loo magacaabaye bal adinku xalliya waraaq burinaysa waraaqda ay soo siiyeen wiilka sooma aysan dirin haddii si loo fiiriyo wiilkaas waddo sharciya uu ku taagan yahay oo wasaaraddii caafimaadka Hiirshabeelle soo magacawday dhanka kale markii laga fiiriyo hay'addii loo soo magacaabay markii la xiriirtay wasaaraddiina waxay leedahay ninkan magacaabistiisu sax maahan ee adinku xalliya corruptionka iyo bakhtiga maamulka Hiirshabeelle ka jira oo uu madaxa iskula jiro oo meel u socda aan la arkin bal wasaarad qof magacawday oo waraaq sharciya siiday haddana dhahaysa qofka magacaabistiisa waxbaa ka qaldan oo waraaqdii ay siiyeen waraaq burinaysa aan keenayn waxyaalaha isku miririxsan ee ilaa jawhar ilaa Garjir ka jiray kamid tahay inaan ku habsaamo dooni maayo haddii hay'adii xaqiiqsatay ninkan inuu sifo sharciya ku socon waxay dhaheen ninkan anagu boos uma hayno maamulkii degmadana maadaama markii wiilka la soo magacaabay la soo xiriiray hay'adda inay ku wasalaan bay doonayeen maamulkii marka wuxuu u aqoonsaday hay'addii amar diidda inay samaynayso haddii si loo fiiriyo waa sax hay'addu amar diidda ay samaynaysaa haddii si kale loo fiiriyo waa sax oo wiilku sharciba maahan oo markii lala xiriiray waxay dhaheen si qaldan baa loo soo magacaabay halkaas isku dhaca hay'adda iyo maamulka uu ka imaaday maamulkii wuxuu yidhi haddaan amarkan ay qaadanaynin isbitaalka waa in albaabada u laabtaan horta waxa meesha ka jiro guud oo la isku haysto wax saasa maamulka mid baan qalad ku saaraya oo leeyahay waad ku qaldantihiin waxay wax ku go'aamiyeen ayaga baahidooda hooyada laga soo qaaday balladaraal oo ilaa balladaraal ilaa Garjir gaarigu soo waday oo ilmaheedii iyo xoolaheedii soo dayacday oo hooyo reemihii ahayd markii hore oo dhiiggooduba uu aad u yaraay in isbitaalka iyadoo umulayso lagu xiro baahidooda ayay ku go'aamiyeen nin dharagsan baahida micnaheeda ma yaqaana sababtoo waaba dharagsan yahay waxaa la rabay maamulku dadka shacabka inay u naxariistaan ay fiiriyaan hay'addu iyadoo joogtay ay hay'ad kale ku bedelaan waa waddada ugu dhow tan ay ruqsad siiyaan mid kalena ay soo xortaan oo labada hay'adoodu ay isbedelaan isbitaalka albaabkiisa aan la xirin sida hooyada iyo dhallaanka shubanku ku dhacayo ay u badbaadaan oo aysan isbitaal la'aan u noqon sida hooyada laga soo qaadayo meesha fog aan Gurceelo intaasoo kiiloomitir aysan u sii aadin iyadoo Garjirka heli karta kaniini yar ay u baahan tahay daawo yar u baahan tahay maamulka horta talada dhaaftay taladaasay ahayd laakiin waxay wax ku go'aamiyeen baahidooday wax ku go'aamiyeen dadka reer Garjirada shacabka dad jilicsan anigu kuma ogeyn hal qof oo isbitaalka qofulka inta ka jabiya daawada taala inta nimanka dhaqtariinta halka jooga ay dhahaan isbitaalka noo maamula anagu isbitaalka anaga iska leh isbitaalkaas dawladdu ma aysan dhisin dadka shacabka ah meesha deganaa dhistay qof kasta oo deegaanka u dhashay oo gacan ka geysan karana gacan ka geystay wixii iyagoo wax bulshadu wada leedahay in bareefad laga dhigo oo qolo gooni inta isku qabsata la xirto adunkuna indhaha aad ka daawateen reer Garjiradu waa idin duqnimo adoo kaniini barastamaal u baahan isbitaalka adigu aad xooggaada ku dhisatana uu ku jiro inaad halkaa qandha la jiibsatid waa doqonnimadaada xaq waxaad u leedahay maadaama muruq iyo maal isbitaalkaas aad gashatay inaad kaniiniga ku jira qandha jabisaan u cuntaad xaq u leedahay xoog iyo xeelad waxaad ku soo qaadan kartidba waa marka runta laga hadlayo anuu cilmi isku direen sababtoo ah isbitaalkan isbitaal dawladu dhista maahan isbitaalkan isbitaal maamulka jooga dhisa maahan dadka deegaanka dhistay oo gacan ka geystay qof kasta oo reer Garjirada ayaa gacan ka geystay ilmihiisa loogu daaweeyo si hooyooyinkiisu ugu umulaan xooggaadii marka haddaad ka baahnaatid waa ku doqonnimo muuqaalkan waxaa la rabaa wasaaradda caafimaadka ee Hiirshabeelle ee wax isdaba marinaysa ee corruptionka wadda ee wax isku walaaqaysa inaad gaarsiidid dawladda federaalka waa inuu gaaro xildhibaanka halkaa u fadhiya dadkaas waa inuu gaaro